فتحي جامع بارودي عبد الرحمن ظاهر عيناشي وكمدة مشرحين توتاغن doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa deeqbiya gaarsiiyay deegaano hoos yimaada gobolka Maroodijeex odayaashii iyo waxgaradkii dhalinyaradii madashaasi ka hadlay ayaa mahad celiyay musharaxiinta soo gaarsiisay deeqdaasi biyaha ah midna naftayda ku jiraan ayaan baaqaan u diray madaxweynaha Soomaaliland waxa weeye halka ay magaanu joognaa waa la qeyrti waxay ku suntantay halgankii u horeeyay SNM meeshii la dumiyay meeshii laga ambaqaaday meeshii lagu hordhintay meeshii baraagteeda la dumiyay weeye la qeyrto waa taqaanaa madaxweyne waxa ku xigtay xuduudka dheer ee reer abtigaa dugo nin kastaba ha noqdee meeshii wanka qaadatay codkaaga markaad madaxweynenimada u halgamaysay waa meeshii wanka qaadatay dadaalkeedii iyo waxqabadkeedii iyo dhakhtarkeedii iyo iskuulkeedii waanu ka sugaynaa anigu horta waxaan ahay odayaasha kaamka ku suntan ee haddii kaamku wax doonayana la soo hadlo haddii kaamka wax laga doonayana dee la soo hadlo odayaashii kaamka aasaasayna ka mid baan ahay raggii kaamka aasaasay maxamed yimaan oo odaygaasa iyo cawl baa malaa ka sii nool raggii kale kaamka aasaasay wuu tegey sidaa ka bacdi way la soo hadleen maalin dhaweyta waxaynan biyalaan baanu bakteenna aniguna dee xoolamaan hayninee dadka aan u dhuun daloolayn telefoonnadooda haya baan gargaraacay waxaa ka soo jawaabay labadaa inana xildhibaanada فتحي جامع بارود يا عبد الرحمن ظاهر عيناش وحقبت كي كلمية وحواي قبتين بلغ وينو ليهي وحي علينا حكومة أينو عد كناسيني كناشرحنا كلامنا هاي وينو كسوغينا وحي كلاينو علينا يدل كسوغينا تالك أنو تاغني ودقمديني لانغيرته waxayna la socdo odayaashii ugu waaweynaa uqaashi bayna la socota odayaashii deegaanka jooga labadii musharax bay noo jooga annagu hadaan nahay dhalinyarada ardaaga bilgob waxbay noo jeexeen odayaashu nin kastaana hanku ku jira laakiin nin aabihii iyo adeerkii talinayaan aabayaashii adeeradii kama hoos taliyo odayaashu waxay noo keeneen labada musharax oo kala ah golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka فتحي جامع بارود وحو شرحي golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo waxaan ku wadnaa inuu noqdo maayir wabaad dhageysta ilma adeeraya Cabdiraxmaan Daahir Caynaashna waa garanaysan oo mujaahidkiyo isagu markuu ladkiisu islaamta galayeen ayagoo kuwii kale ay saaxiibka ahaayeen xaafadooga hoosta kaga jiraan waa ninkii qoriyaha Hargeysa soo gelinayay aad iyo aad baan u salaamayaa xildhibaanada iyo wafdigan ardayga ka socda inoo yimi Fatxi Jaamac Baaruud iyo عبد الرحمن ظاهر عيناش aad iyo aad baan u salaamayaa oo dadkoodii iyo deegaamadoodii karaankooda isu soo xilqaamay oo soo gaarsiiyay biyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan ugu ducaynaynaa labadaanina ina Daahir Caynaashe iyo ina Jaamac Baaruud baan reerku isku raacay golaha deegaanka iyo baarlamaankana weeye maantana biyaha iyaga idinku deeqay de tolkood bay wax soo u gargaareen iyagana waynu ducaynaa Ilaahay halka ku guuleeyo horta bacad baynu taaganahay raalli ahaada iyadoo waliba oon iyo haraad jiro waxana waa wax yar wax badan ma geysanayaan intii ilaahay haw cafuunba ka cabi doonta ilaaha raxmaanka laakiin gacan weyn isaga umadiisa wax deeqsin kara kaasaynu aan baryana annagu idina waa nala baryaysaa gacmaha ilaahay isagaynu cirka u taagana ilaahay waxaynu ka baryaynaa roob khayr qabayno ilaahay noo shubo waxaan yaraan wadnaa wax meel gaadhay ma hawo ognahay 10 booyadood baan la qeyrta ugu tala galnay markaan toon maraynaa baan aragnay dad idinka si jilicsan oo idinka baahi badan iyo meeygaaga deetana 5 booyadood kale halkaas aan u dunnay marka hore qorshahaygu waxa ahaa horta 10 booyadood ay ku si meel gaadhaan u geysaan wax dabana oo ka daba keenna hadii aan la idhaa in kastoona idee waxaanu keenaynaa aan waxba meel la idinkaga dhacahay hadina ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay roob madar khayr qaba inoo shubo inuu madar khayr qaba inoo shubo baan ilaahay ka baryaynaa mid kaloo ku yar darayaayo degmadani magaaladan laanqeyrta qoldhuxulaale waa magaalada xukuumadda ugu tacabka badnayd xukuumadda nimika jirta wax way qabatay xukuumaddu dhaam waxay dhistay lacagta ku baxday la qiyaasi kara inta ay tahay dhaamkii uu dhameystiran yahay
xukuumaddu wax badan bay qabatay wax kalena waa ka sugaynaa Khadar Maxamed Ibrahim Real TV Hargeysa